dhaqanka Soomaaliyeed gabdhuhu waa laf-dhabarka qoyska waa isku haynta bulshada muddo dheer waxaa jira darbi u dhaxeeya sharafka dhaqanka iyo shaashada saxaafadda waxaa la aaminsanaa in mikrofoonka iyo xishoodkaan isqaadan karin gabdhaha saxaafadda soo gasha waxay u muuqatay qof heeryadii dhaqanka iska tuuray waxaa loo arkayay kuwa jabinaya xeerar dhaqan waxayna la kulmi jirtay garnaqsi adag oo kaga imaanaya ehelka iyo asxaabta cabsida amni hanjabaadaha iyo cadaadiska bulsho ayaa ahaa caqabada waaweyn ee hor istaagay gabdho badan waxaa jirtay 2009 in si shakhsiyan ah la ii soo weeraro guriga la igu soo weeraro marka hore si aan u fahanno halka laga imaaday aan u laabano 2008 xilli ay adkeed in gabadhu magaceeda dhabta ku hadasho waxaa jira kuwa u bareeray dabeesha takoorka si ay wadada ugu xaraan jiilka maanta Nashaad Bashiir waxay muddo dheer ku jirtay warbaahinta waxaana kala sheekaysanay sidee ahayd ku soo biiristeedii warbaahinta iyo caqabadaha ay kala kulantay aad ay u mahadsan tahay mihnadan saxaafadda waxaan ku soo biiray sanadka markuu ahaa 2008 xilligaas oo jireen colaado sokeeyo waliba xaaladda amniga ay aad u liidatay bulshada Soomaaliyeed in gabar saxafi ay noqoto waxay ka aaminsanaayeen waxyaabo badan dad badan oo ehelnahay asxaabnahay macallimiinteedii jaamacadda way igu tilinayeen inaan ka haro because waxay u baqayeen amnigayga iyagoo ii sheegaya in xilligan ay ku qurux badneen in gabari ay saxaafad ay guda gasho ay wariye noqoto laakiin waxa jiray hooyo iyo aabo oo iyaga igu dhiirigelin jiray maadaama ay ahaayeen dad dawladeed caqabado badan la kulmay because waxa jirtay 2009 in si shakhsiyan ah la ii soo weeraro guriga la igu soo weeraro xilligaas xaaladdu aad u xumeyd markaas wasiirkii jooga ayaa waxay soo diray ciidan halkaas laga soo baxshay guriga kadib wasaaradda ayaa la dajiyay waxaan ka mid noqday shaqaalihii wasaaradda warfaafinta deganaa ee sababaha amniga u joogay ku dhawaad 10 sano ayaan meeshaas deganaa xaaladda amniga ma fiicneen laakiin maanta alxamdulillah amniga dalka waa okay Kaafishi Xuseen waxa heerka koowaad ee jaamacadda ka diyaarisay kulliyadda saxaafadda laakiin waxay wajahday falcelin adag oo kaga timid ehelka iyo asxaabta kuwaas oo qaarkood u haystay inay waqti iskaga luminayso su'aalna ka keenay sababta ay kulliyaddan u dooratay falcelinta markii la falcelin fara badan oo dhibaatooyin ah oo niyad ay iga imaatay marka baranaay mihnadan oo aan jaamacadda u baranayay dadka intooda badan waxay aaminsan yihiin in mihnada saxaafadda ama warbaahintaba ee wax jaamacad lagu barto ama aantaasoo sano waqti lagu qasaaray aysan ahayn laakiin ay tahay wax bareefad ama iskuul yar ama wax yar oo meel ka baratid inay tahay laakiin anigana ma u joojin dadkaas hadalada iga imaanay hadal ma baranay maanta waa hadli kartaa qof hadli karaa tahay ilaa yaraanta ilaa hadda macnaha Soomaali waa taqaana wax hadli karaa tahay maxaa jaamacad waqti iskaga dhuminay maxaa waqti aad u qasaaray inta badan waxyaabaha kamid ah waxay iga hor imaanay oo bulshada iyo waliba ehel asxaab dhamaantood ay dhahayeen laakiin aniga dhig jal kuma siinin alxamdulillah riyooyinkay waa ka dhabeeyay waxyaabo fara badan isbedelay in bulshada mihnadan waxay ka aaminsanayeen wax qaldan oo xun oo siiba gabdhaha u fiicneen ay ka aaminsanayeen laakiin waxyaabo isbedel waxa qayb ka ah in dadkii si fiican u fahmeen mihnadan inta wax fiican oo lagu shaqeysto xirfadooyinka la barto ama wax jaamacad lagu diyaariyo iskuul lagu diyaariyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee qayb ka tahay ayay bulshada fahmeen markastaba teknolojiyadan iyo waxaana dadka bedelaysay iyo waliba gabdhihii iyo dadkii ku soo badanayeen saxaafadda bartaan si aanu iftiimino isbedelka maanta iyo fursadaha jira Sacdiye Cilmi waxay howlaha saxaafadda ka shaqeynaysay muddo 20 sano ah anagoona ka wareysanay isbedelka muuqda iyo u guurista dunida casriga Xaliimo aniga last 3-4 years waxaan naftayda barayay systemkan AI-da iyo e-commerce-ga iyo monetization of digital products iyo digital money aan naftayda ku educate gareynay cimrina waa ahayo waqti waa jooga sababtan wax kale ma ahan waxaan gabdhahaygana u sheegaa gabdhaha haddana u sheegi doonaa ha ka harinina adduunka oo soo soconayo ma u baahnid maanta ina inta TV ama radio tagtid oo lagu hire gareeyo haddaa u leedahay capacity naftaada inta educate gareysid wax baratid ina war gudbin karsid ayaga ku soo raadsanayaan adduun hadda waxaa joognaa oo adiga lagu soo raadsanayo waayo waxa haysataa platform ku soo gudbin kartid skill-kaaga waxa tahay ku sheegi kartid
أول لما هيسن فرصة داس وإنه قف كوه الله سلوه وقاعد قف كاتهاي I assure you أديك individual العقو سمين كرا ضد بدن وقبل كلا empower قرين كرتها at the same time بلات network أد وين أو international أهماي بي أياك صورة صندوقنا هديك هلان مركتاسا قلت لنا لا قبلها educate yourselves إذن كنفتينا وحبرا doorka ay ururada ku leeyihiin horumarinta gabdhaha ka shaqeeya mihnada saxaafadda waxaan ka wareysanay gudoomiye ku-xigeenka ururka Sawjara Naciimo Saciid Saalax. bulshadeena Soomaaliyeed fikrado kala duwan ayay ka aaminsan yihiin shaqada warbaahinta markay tahay gabdhaha oo qaab cunsuriyad ah badankooda waxay aaminsan yihiin shaqadaas inaysan ahayn shaqo ku habboon inay gabar ka shaqayso waa caqabad taagan oo u baahan in wax laga qabto ka soo jir ahaanna in badan aan isku daynay balse soo jiro kaliya wax ka bedeli karto waxay u baahan tahay in haddii noqon lahayd ururada bulshada rayidka haddii noqon lahayd dowladda ururada haweenka in si buuxda in loo garab istaago gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed sidii waalidiintooda looga dhaadhicin lahaa in shaqada saxaafadda ay la mid tahay shaqooyinka kale ee gabdhaha ay qabtaan. Sanadihii u dambeeyay warbaahinta casriga iyo baraha bulshada ayaa bedelay qaabkii saxaafadda. Gabdho badan ayaa helay fursado ay codkooda ku gaarsiiyaan bulshada ayagoo aan ku xirnayn hay'ado waaweyn. Waxbarashada, wacyigelinta iyo soo bixitaan jiil cusub ayaana door weyn ka qaatay in bulshada ay dib u eegto aragtidii hore ee gabdhaha ku shaqeeya mihnadan saxaafadda. Xaliima Daawud Maxamed, magaalada Tani Muqdisho.